በፕሪቶሪያ ስምምነት መሰረት የተቋቋመ ኢንተርም አድሚኒስትሬሽን ነው። የሆኑ ሰዎች ጉባኤ አድርገናልና ወይ የሆነ ዳስ እቁብ ጥለናልና በዚህ መልኩ በዚህ ይደረግልን ብለው ስላሉ እንዴት መንግስት ይሆናሉ ነው ፍላጎቱ አለ። waa maamul lagu hoosameeyey heshiiskii Pretoria oo la aqoonsan yahay siday ku dhacaysaa marka inay cidi iska dhaxdo waxaanu yeelanay kulan amaba sida hagbadii markani waa markayga oo waxaan rabnaa inaanu noqono dawlad rabitaankooda waxa weeye in haddii ay intaasi u hirgasho in ay deegaanka sii maamulaan oo siday raba ka yeelaan መንግስትነት ማህተም በመንጠቅ አይመጣም። የህዝብ ልብ በማሸነፍ ህዝቡ ምን ይያለ ነው አገልግሎት ነው ይፈልገው። አይ ማህተም ያዘ ነው የሚመራኝ የሚል ህዝብ የለም፣ ውሸት ነው ማለት የደጋፊዎችን ቁጥር ማወቅ 90% ህዝብ dawladnimadu kuma timaado in la iska faramaroojiyo sharciga iyo shaabada qaanuunka ku salaysan balse waa in aad ku guuleysato qalbiyada shacabka. waxa isweydiin mudan oo la rabaa in la ogaado shacabku muxuu u baahan yahay. shacabku ma doonayo cid walba oo shaabad iska wadata amaba sharci u gooni ah wadata. cid walba fikirka aaminsanna waa mid ku salaysan been